Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janaalkeena iga filo wanaag. Maanta maxay noo wadaa macmacaan aa cuni karta afurka kadib. Afur hadii oo ahayn waxaa cuni kartaa soon oo ahayn waqtiga oo casriyo ku fiican yahay ama afurka kadib macmacaanka la cuno fudud. Soonka waa iska ogtiin mashquulkiisa badan waxyaalo fudud loo baahan yahay maaho. Marka alaabtan kasoo tuuro leh 10 daqiiqo ma ka qaadanayso. 10 daqiiqo inay kugu yaraato ka yar ka qaadato mooy 10 daqiiqo ka badan ma ka qaadanayso soo tijaabiyo. Wuxuu ka samaysan yahay waxyaalo basiit waaye oo fudud guri walba yaalo. Waxaa u sii dheer waqtiga lagu sameynayo u fudud yahay maasha Allah quruxdiisana waa ujeedaan waxaa ka sameeyay ila arka ugu horeyn. Channelka hada ku cusubtaa subscribe saar videoga haduu ku cajabin like saar asxaabtaadana la wadaag waana ku mahadsantahay daawashada quruxda badan aana daawato mar walbo iyo meel walba joogto kusoo dhawaada gacmo furan waa kana inta waxa ku haysta toast waxyaalahaas gadgaduudka intiisa gadgaduudana iska jafeena oo ujeedaan geeso ka gadgaduudan yahay maaho waa kaasa xadka una isticmaaleena waa kaasa geesaha dhan oo gaduudku iska bixinayna oo isticmaalno qaybta cad oo kaliya intaas una u baahanahay uma baahni waxyaalahan gaduudka marka saas waa jafa waa gogoynayaan ka wataa aad u gogoynaya asiga dhan waa gogoynaya oo caanaha markay oo igu fududaado caanaha aan ku shubo caano badan xitaa ma ka qaadanayo alaabtan alaab ka fudud ma jirtaa ku dhahay inta hawsha aad haysid ka soo tuureysa maasha Allah waa fudud ya waqti badan ma ka qaadanayo rootiga inta badan gaduudku waa ka soo go'ay intaas kan ugu dambeeya waaye caanaha ay caana isticmaalaysa kan hadaa haysan boora isticmaalaysa dib malahan khasatid waxaan qaandaan ku cabiraysa ilaan biyo badan ma qaato ama caano badan ma qaato ujeedaan 3 ku daray qaanda afaraad ku daraya 4 qaande saas noogu noqotay waa isku qasaa marka waa jijibinaa gacanta marka la galo asaab isii dhaxgala ujeedaan hada kulli inta oo kugu filan adaa taqaano inta kugu filan marka haduu oo intaan ka badan yahay waa ka sii badsanaysa maaho caanaha saas waaye kullama badiso kulli ma la isku sheegay caanahan inuu ku sii badanayo muhiimada qiyaas inuu caanaha ku lahaado waaye oo ka jilcin rootiga haduu ka jilco wuxuu ka dhuuqaya saliid had aad ugu adkaado gacanta ku dareemaya hal qaando kala ku daray jileec ka naqanin adeegniyo ka naqanin haduu ka jilco zaid saliidu ka dhuuqa haduu ka adkaadana wuxuu noqonaya ciiriin marka waxa fiican dhaxdhaxaad inuu ku noqdo mar walbaba marka waa saas ku soo qastaa dawaab diyaar waa ajima was dhaxgelinoya wax kale ma ku darin caanahaas ujeedeen iyo rootigaas soo qastay wax kale kuma darin marka waa duwanayna leh intaas leh una u baahanahay wax ka fudud ma jirto waa maya asxaabi mideeda kale sokorta sida loo karkarinayo video hore u soo galiyay sokorta kor ugu shuban lahaa sokora isticmaalaya sokorta waxa sameynaya koob sokorta koobka shaahiga oo sokor iyo koob ibar oo biyo dabka ku saara oo saariya inta hawshan haayo marka ma soo galinin sababta mar hore soo galiyay anoo sameynayo waxaan isdhahay videoga ha ku sii dheereenana asxaabta waa ku kuusaya ujeedaan hada sida ku kuusooyo gacan bini'aadan jin ma noqoto hada inta jimeyn kartid jimey isku day inaa jimeyso oo waxa dhan jinjin oo ku noqdo hadhooti marka baaquliga ku shubatid si qurux kuugu soo baxo waxa markay isla wada eg yihiin oo yaryariis ama waaweyn ama dhaxdhaxaad isla wada yihiin quruxay noqonayaan ma mid weyn mid yar mid dhaxdhaxaad taas daran marka waa sidaas dhaxdhaxaad hada ka dhiganayo waaweyn zaidna ma ka dhigayo yaryariis ziyaadana ma ka dhigayo waa dhaxdhaxaad
waa kaas oo ujeedaan qiyaastiisa waa arki kartaan sida uu yahay iyo soo kusoo baxooyo waa dareemi kartaan. intuu kuu noqdo kolleyba inta aad samaysatid intuu kuu noqdo aa ka dhiganaysaa qofba horta si uu jecel yahay. dadaa jecel dhexdhexaadka, dadaa jecel waaweynka, dadaa jecel yaryariiska. adiga saa jeceshaha ka dhigatid bas markuu dhexdhexaad yahay waxa aa saarato quruxuu kusoo baxaya maaho intaas ula jeedaani. marka dhexdhexaada hadda kasoo dhigtay. marka saliida dabka sii saaranaya saliidana ayadana dhexdhexaad iyadoo ah kurid ayadoo oo aad u karkarta hadaa kuridid dhexda cajiinu ka naqanaa. waa kana mujeedin oo dhexdhexaad inay tahay waa laga dareemayaa aad u kululeen aadna u qaboobeen. hadii oo ayadoo karkaraya kuridid cajiinu ka naqanaa wuuna gaduudana. hadii iyadoo qaboob aa kurididna wuxuu noqonaa saliidu ka dhuuqaya. marka labadaba si uu kugu noqonin waxaa sameysaa ayadoo dhexdhexaad kurid. dabka aa ku dubaysidna dhexdhexaad ha ahaado mid aad u gaabsanna yuu ahaanin mid oo yuu ahaanin oo aad u dheer soo tartiibkiisa ugu bislaado. waa alaabtaan alaab ka fudud maba jirtaba sababtoo waxa laba shay ka sameeyay oo ujeedeen sokorta kusoo dhex riday oo dabka ii saarneed 10 daqiiqo aan ku dhaafayaa. waa kana 10 daqiiqo kadib asxaabe saanu noqday dabka waa ka damiyay baaquliga ku diyaarsan lahaaya aan ku shubanayaa oo dadku ku horgeyn lahaa. waa kana asxaabe sidaas oo igu soo baxay maasha Allah waa ujeedaan hal lahaye sadar muuqdo su'aalka dhan waa ujeedaan sidoo yahay soo fududaan waa ujeedeen. marka ma u baahna ma hadal badan ma u baahnaba afaarahan 2 daqiiqo kusoo tuuri kartaa 10 daqiiqo wax oo dhib badan maahan yaa. isku soo naqad wacan fi amaanillah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.